ku soo dhawaada barnaamijka raadraac oo laba ka daawan doontaan dulqaad media TV waanigoo wariga Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujufa waxaa maanta marti nooga ah barnaamijka oo wareysan la yeelan doona gudoomiyaha ururka Soomaali Info magaalada Kaasal ee gobolka Haysan dalka Jarmalka Cabdullaahi Waceys oo la soconna waxa bishii hore June 26 magaaladan Kaasal lagu yeeray Soomaali gaaraya 200 oo ay u yeereen safaaradda Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha arintaasi maxaa kala socotaa faahfaahin ma siin kartaa ma sanad walaal 26 bishii lixaad waxaa magaalada Kaasal lagu ballamiyay dad gaaraya 200 oo qof oo Soomaali ah dadkaas ayaga ah waxaa marti qaaday ama u yeeray immigration Jarmalka waxaana lagu ballamiyay xarunta ajaanibta ee Kaasal ama Central Ausland Board Kaasal cidda ballamisayna safaaradda ma ahan waxaa ballamiyay immigration dadkaas ayaga ah sidaan hadda ka hor baan dadka u sheegnay waraaqadaha loo diray waxaa ku qornaa in ay imaanayaan magaalada Kaasal isla markaasna la cadeynayo Soomaalinimadooda ayna imaanayaan dadka socda safaaradda Soomaalida ee Germany halkaasna loogu sameyn doono waraaqadihii dib loogu celin lahaa waa sida ay ku qornayd waraaqadaha dadka lagu marti qaaday ama loogu yeeray way dhacday arrintaas iyada ah 25 iyo 26 bisha dadkii Soomaalida ahaa soo ajiibay martiqaadkii immigration waa imaadeen isla maalintaas ayada ah dadka waxaa lagu sameynayay in wareysi oo identification ah lagu cadeynayo isla markaasna waxaa laga qaadayay faro iyo foomam in laga buuxiyo kadibna laga saxiixo taas ayada ah marka dad fara badan waa laga saxiixay waraaqadihii iyo foomamkii isla markaasna maxaa dhihi jiray waa la identificate gareeyay waa la cadeeyay laakiin in isla markaas iyada ah waraaqado loo sameeyay iyo in kale warmahayno kulley waraaqadaha sameyntooda waqti qaadanaysa sanfilayo 4 ilaa 6 isbuuc ama 8 isbuuc way qaadan kartaa waraaqadaha inta la soo sameynayo intaas kadib wax dhacay ma jiraan markii laga reebo laba arrimood oo nala soo wadaagay oo dadkii inala soo wadaageen sida isla maalintii yar qofka la wareystay maalintii ku xigtay in wiil degan magaalada Hanau subaxiiba ay booliisku gurigiisa tageen Hanau waa magaalo u dhow magaalada Frankfurt iyo magaalo kale oo la yiraahdo Bad Vilbungen oo gobolkan Hessen ka tirsan oo Kaasal u dhow isla subaxiiba inay booliiska qofkii gurigiisa tageen nasiib wanaag qofkii uusan joogin gurigaas labada qof ma aysan joogin gurigooda subaxii ma qaana markii inay qaadi lahaayeen in kale warmahayno ala kulli xaal waxa dadka soo cusboonaaday ma jiraan laakiin haddii ay wax ka soo cusboonaadaan kulli dadka ama social media ama dadku waa la soo wadaagi doonaa arrintaas ayada ah waxaa sidoo kale warbixin ka qoray journalka Tagesite oo yiraahdo ee kasoo baxa Berlin wareysi uu la yeeshay ama war uu wax ka weydiiyay wasaaradda arrimaha gudaha afayeen oo hadashay waxa ay tiri in ay Soomaaliya dad loo celiyay inaysan ahayn ceeb loo celin karaa 17 inay u celiyeen dad isla markaasna 2017 inay dad u celiyeen 18 inay dad u celiyeen 19 inay u celin doonaan weliba waxay tiri waxaan tixgelinta siin doonaa oo laga yaabo inaan u celino meelaha degan sida Puntland iyo Somaliland marka arrintaas iyada ana waxaa warbixintaas qoray journalka Tagesite kulley inta badan dadka Soomaalida Jarmalka way u dhigeen oo waa la wadaagay marka niyo arrintaas saas u dhacday kulley waxaan filayaa inay intaas waa rajeynaya inay intaas u ekaan doonto waa rajeynaya inaysan wax oo negative
folga inaysan sii raaci doonin hadduu ilaa yiraahdo. Marka intaasaan ka ogahay, intaan ka ogaa waa intaas. Okay, urur ahaan Somali Info ninkiina maxaa ka qabateen oo ma la xiriirteen ururada kale ka dhisan magaalada Kassel oo ah dadka Jarmalka oo kale arrintan ma u sheegteen oo mahadsanid walaal. Aniga ka Somalis Info ahaan ama ururka Somalis Info arrintaas xilli hore ayaan ka warhelnay. Arrintaas waan ka falcelinay intii anaga awoodeen ahayd ama kartidaanu ay gaaraysay waan ka falcelinay, sida in aan bulshadii Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nooleed aan la wadaagnay arrintaas iyada ah. Isla markaasna aan la wadaagnay ururo kale oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha ajaanibta iyo qaxootiga. Axsaabta siyaasadda ee Jarmalka waa la socodsiinay, isla markaasna saxaafadda Jarmalkana waa la socodsiinay oo way daba gashay. Intii awoodeyna ahayd bulshooyinka Soomaaliyeed ee Jarmalka markii aan la socodsiinay, waxaa maalintii 25-26 ahayd magaalada Kassel ururka Somalis Info iyo ururo kale oo cadaan ah oo Jarmal ah oo arrimaha qaxootiga dooda dhowr tallaabo qaadnay. Mid waxay ku saabsanayd in aan dadkii Soomaalida ah ee waraaqahaas loo soo diray in ay nala soo wadaageen waraaqadihii oo aan isla markaasna ay kulli loo soo wada direen waraaqadihii loo soo diray copy. Tii waxaan sameynay in aan la wadaagno ururada arrimaha qaxootiga ku dhaqdhaqaaqa sida kuwa gobolka jooga iyo kuwa magaalada Kassel jooga intaba. Waxaa ka mid ah Flüchtlingsrat inaan la xiriirnay, Pro Azul, Solidarity Kassel, hay'adda xuquuqda qaxootiga u dooda ururka xuquuqda qaxootiga ururo Soomaali ahaan marka loo turjumo ururo u dhaqdhaqaaqa waaye arrimaha qaxootiga. Isla markaasna waxaan la xiriirnay xisbiga linkiga kutladiisa gudoomiyaha kutladiisa gobolka Hessen oo aan arrintaas ku wargelinay. Asagana uu yiri waxaan weydiinayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay kala socoto arrimahaas. Waxaan markii aan intaas marinayna waxaan kadib kulan la qaadanay ururada maxalliga ee magaalada sida arrintaas wixii laga sameyn kari lahaa. Waxaan isla garanay markaa talooyin fara badan kadib in maalintaas Soomaalida la garab istaago. Garab istaagana in uu noqdo in dadka macluumaad la siiyo oo ugu yaraan aysan wax waraaqad ah saxiixin, wax fara ahna aan laga qaadin. Isla markaasna waxaan kaloo sameynay inaan sameyno documentation, inay wixii maalintaas meesha ka dhacay inaan documentareyno iyo in aan sameyno observation, in aan dushana kala socono. Waxaan kaloo sameynay in aan saxaafadda Jarmalka la xiriirnay oo aan arrintaas u bandhignay in ay baaraan wixii ay kala socdaan ay nala soo wadaagaan. Tusaale ahaan waxaan la xiriirnay Tageszeitung, waxaan la xiriirnay midka gobolkan ay kasoo baxa oo la yiraahdo HNA. waxaan kaloo la xiriirnay journaal kale oo Freitag ku dhaho. Waxaan kaloo la xiriirnay immigrationka magaaladaanada oo aan warbixin weydiinay, ayaguna wixii ay ka ogaayeen inoo sheegeen, sida inay yiraahdeen waa sax dadkan in la marti qaaday, ujeedaduna ay tahay in la caddeeyo isla markaasna loo sameeyo dokumentiyadii lagu xilin lahaa. Marka anaga waxa aan sameynay waxay ahayd intaas oo aan isleenahay ugu yaraan waa wixii ugu yaraa dadka Soomaalida ah lagu caawin karay. sidaa og tahay waddanka Jarmalka waa waddan hadaf u ah qof kasta oo Yurub usoo haajiraya. Soomaalidana waxaan isleeyahay waa dadka ugu yar qowmiyadaha ugu yar ee waddanka ku nool.
markii la barbar dhigo wadamada carabta sida ciraaqiyiinta oo kale, suuriya oo kale, afghanistanka oo kale, wadamadan iiraan oo kale, afrikaanka sida wadamadan senegal oo kale, wadamadan galbeedka afrika ka yimaado oo kale. marka waxaan isleeyahay soomaalidu waa dadka ugu yar intii aan marka aan dadaalkan aan ku jirnay in aan arrintan bal wax ka ogaano. dadkii aan la shaqaynaynay ama nagala shaqaynayay in arrintan aan wax kala qabano waxay noo sheegeen in arrintan oo kale, arrimahan oo kale ay horay uga dhici jireen wadamada kale, oo dad fara badan oo waddanka iska dhiibay aysan sheegi jirin ama identitygooda ama caddeymahooda aysan sheegi jirin. sidaas darteed in ay dowladdu isku dayi jirtay in ay dadkaas caddeyso, marka in ay intay soo ururiso ay safaaradda ay ku tuhmayso in ay dadkaas u dhasheen in ay u yeeri jirtay, halkaasna ay ku caddeyn jirtay cid alaala ciddii ay caddeyso safaaraddaas na isla markaas sidaas loo tarxili jiray maadaama aysan helin magangelyo uu siiyey waddanka Jarmalka. marka laakiin arrintan waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay dadka Soomaalida ah lagu sameeyo horay. waa mahadsantahay. waxaan soo gabagabayn doonaa barnaamijka. ugu dambeyntii maxaa tala ah ay tusaale ah usoo jeedinaysaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel? horta Soomaalida guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa in ay sharciga Jarmalka ilaaliyaan. maxaa yeelay meesha aad joogsid inaad sharcigeeda ilaalisid waa muhiim, isla markaasna aad si nabadgelyo ah loogu noolaado. talada labaad ee soo jeedinaya waxaa waa inaad dadkaaga ku xirnaatid Soomaalida ah, in aad waxbaratid ama aad shaqaysatid, isla markaasna aad iska warhaynta dadkaaga aad xoojisaa. qofkii aad caawin kartid aad caawisaa. tala guud horta waa intaas. dadka Kassel waxaan rabaa inaan hal arrin oo muhiim u sheego. halka arrin ee muhiimka ah inaan u sheego waxaa waaye waxaad tihiin muraayad. magaalada ay ugu badan yihiin Soomaalida Jarmalka markii la fiiriyo magaalo ahaan, magaalo ay degan tahay dad 1000 qof gaaraya, waxaan isleeyahay way yar tahay haddii jirtana. marka sidaas darteed waxaad tihiin muraayad. waa inaad tusaale u noqotaan Soomaalida Jarmalka joogta inteeda kale. tusaale sidee ugu noqon kartaan? inaad iskaalmeysaan, in aad xumaanta iska dhaaftaan, qabyaaladda inaad iska dhaaftaan, xinka inaad iska dhaaftaan, fadkudarirka oo beenta inaad iska dhaaftaan, isla markaasna aad inaad shaqaysataan, waxna barataan. qofkii wax qabanayana wanaag uu qabto. intaas oo soo jeedin lahaa. haddaad xaqiina soo dhacsataan, waxaan oola jeedaa in wax xuquuqda idinka aa leedihiin inaad taqaanaan oo inan xaqiina cidna ooga gabanin. haddaan ha ahaado madow ha ahaado, qofka bini aadamka ah inuu xaqiisa uu doonto waa wax laga maarmaan inta uu sharciga ogol yahay. marka in aad taas ku dadaashaan aan idinkugula talinayaa. midda kale idinkugula talinayana waxaa waaye inta badan waxaan ogahay aniga magaaladan waa deganahay, Soomaalida danta guud way ku yar tahay in ay ka shaqeeyaan danta guud. marka qofka haddii uu jaanis u heli karo in uu dan guud ka shaqeeyo, ha ka shaqeeyo asagoon qofna ku colaadinaynin, asagoon qofna ku dhibaynin. wixii uu qaban karo inuu qabto. taas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni raadraaca oo kala dulqaad media TV. waa aniga oo wariye cabdinaasir maxamuud xaaji axmed cabdinaasir qujufa magaalada Kassel dalka Jarmalka.